ahaynba marna inaanan raalli ka noqonaynin taageeraynin garab istaagaynin mitir kamida biyaha Soomaaliya in la qaato oo lagu qaato ogaalkeen iyo rabitaankeen iyo ka raalli ahaanshaheen inaan lagu qaadanayna ummadda Soomaaliyeed u ballan qaadaya haddaan xilka ka degana qadiyadaas waa u taaganahay haddaan xilka sii hayana qadiyadaas waa u taaganahay biyaha Soomaaliya annaga iskale inta yarta ee la isku haystaa waa yartahay badda aan leenahay marka loo fiiriyo laakiin annaga iskale mitir hano ahaata haday doonto annaga leh 150,000 oo square kilometer waaye annaga iskale 3,000 kilometer nacmu 1.8 milyan 1 milyan iyo 800,000 oo kilometer square waaye biyeen 150,000 wax yar ay ka tahay laakiin 1 mitir haday taxta annaga leh sabab aan uga tanasuli karnaa ma jirto sabab aan u deyn karnaana ma jirto shalaan lahayn awooyaashana lahaa annagoo nool maanta leh kuwa naga dambeeyo biri ay lahaan doona khayraada ku jira iyo barwaaqa ku jirta iyo ma aha waa mabda waxa aan leenahay inaan cishano ilaashan dalka Kenya waa dal aan darisnahay waa dal wax badan naga dhaxeeyaan cadaawad ma aha wax cadaawada oo aan Kenya u qabnaay haba yaraatay ma jirto abaalan ku leenahay abaalay nagu leeyihiin wax badan ay noo qabteen hadday wax badan noo hayaan cadaawad uma qabno cilaaqaadkeenu waa fiican yahay laba dalo isku wanaagsan aan nahay dana badan aan naga dhaxeeyo qadiyadan waa ku kala duwanaanay markaan ku kala duwanaadana si ilbaxnimo oo xadaara ayaan muxuu ahay waxaan u hortagnay hay'adaha caalamiga ee waxaan shaqada ku leh laakiin labadeena dal waxaan rabaa inaanan laga sameeynin muxuu ahay dacaydo laga been sheegin laga waxaan waxa ummadda Soomaaliyeed inuu sheego wadanka Kenya annaga cilaaqaadkeena meesha ugu fiicnado taagan yahay cilaaqaadkeena waa wanaagsan yahay cilaaqaad xumo naga ma dhaxayso waa isku wanaagsannahay mashaakilaad caam ah oo naga wada dhaxeeyo wada xallinayna jira kuwa annaga noo gaaro naga saacidaana jiro kuwa ayaga u gaaron ka saacidna waa laba dal oo daris ah cilaaqaadkoodu wanaagsan yahay laakiin qadiyada badda annaga Soomaaliya hadaan nahay waxaan aaminsanahay inaan qadiyadaas dhulkaas adkaas badda inaan annagu leenahay waan u taagnaanayna inaan annagu leenahay wax aan ku bedelanayno oo aan uga tanasulayna ma jirto wax kasto kale waa la isaga tanasuli karaa dhaqaalaha la isaga tanasuli karaa xoolo waa la isii karaa hanti waa la isii karaa waa la isku gurma karaa laakiin markay timaado biyaha badeena tanasul ma ka muujinayno taasaan daba taagnaanayna ilaahay haddana waan soo daba taagnay ilaahay idinkiis waan ku guuleysanaynaa dadka Soomaaliya waxaan rabaa inaan u cadeeyo waan ku guuleysanaynaa intay doonto maxkamadda dacwadeeda ha qaato laakiin xoogii iyo adkaysigii iyo xoolihii aan ku daba taagnaan lahayn ayaa nalaga rabaa ha u diyaar garoobana dadka Soomaaliyeed taasaan